guriga inuu burburo dhibaato badan uu leeyahay qisada kale rabaa inaan idin sheego marka waxa guriga burburitaankiisa waxaa jira nin iyo xaaskiisa waa isku fiicnaayeen laakiin markasta waxyaalo maala yacni la isku qabsan jiray maalin ninka soo galay wuxuu u baahnaa qado u baahnaa waxay tiri qado u baahnaa gabadhan TV iska fiirsanaysa markaas waxay tiri qado waa diyaariyay xaggaas uu yaalay or soo kuleysay cun markaas uu qado soo kuleysanay qadii kan TV-gina ka kacday markaas tiri waa ku sheegay xaggu yaala waxaan fiirsan barnaamij fiican iga tag wuxuu wallahi da ikiino soo ku furo saaynu u fiiris gabadha qaarkood waxa uu adeegay markaas furitaan san kulay soo tuur baa kaas asina muxuu sameeyay bam waa tuure oo furantahay uu dhahay furitaanka markuu dhaco shaytaanka waa baxa waaqica lagu noolaana qof walba uu shalayna kelmad furitaanka waa culus tahay afka in laga dhaho marka tiraahid way culus tahay rag badanoo naagahooda mar badan furay iyo gabdho la furo ark wallahi waxay ku leeyeen fur markii uu dhaco ninka wuxuu markaan dhaho waxaan dareemaa subxaan shalaytada adduunka ugu weyn ay ugu dhacdo markaas un baan waxa arkaa gabadha wanaageeda arkaa laakiin kibirku wuxuu ii diiday inaan u sheego markaas iyadan waxay ku leedahay markii lii furo hooshees xataa way joojinaysaa ma qaban karto dhibaatada gaartay ajligeeda marka furitaanka labada qof dhaawac u tahay gabadhii marka almiin waa la wada fariisay maxaa dhacay dad caqli leeyahay ahayn at least waa wada fariisteen okay qalad way maxaan sameeyaan isku noqon hay oo isku noqday xeer kadib hadana waa tookadan opposite ay ahayd ninka banooni u fiirsanayay aska taqaanaa nimanka banooni ma kiifayso ma jecla xataa in laga war shay keen oo xoti shay kan TV fiirsanay soo fariis kala dasha cabaysid shay keen ma ku keena markaas wuxuu wallahi day keeni soo ku furo markaas tookada rasaas u furto waan ogtayna ka shalaysay wuxuu tookada iska helmaa mi keeni soo ku fura ma keenay tii la wada sida ku tuuri bam afuranta bila macnaha la isku furay fiiri waa la fariis gabadhu waa fariis ninkii TV-ga wuu damiyay u daawan u damiyay hada marka say wax u jiraan waa la fariistay hadda soo qaadan lahayd TV-gu dimidu soo qaadan lahayd khalas sheekadu waa dhamaan lahayd iyada hadii u keeni lahayd ninkeeda uu soo adeegi lahayd sheekada culeyska ma jiri lahayd marka dambe la fariis waxa leeyahay maqal waa arintan waa soo noqotay gabadhu waxay tiri furitaanka aan ii dhiib adeen nin waxa ta غير mas'uula tahay ana ka qaadaa keen mar labada xabba bila macna ku tuurtay غير mas'uula tahay keen furitaanka xulma ana waxay tiri may bas martan lagu maaminay waayahay sidii marka uu ugu dhiibay اسبوع كما soo wareegeen wax kala la isku qabsaday saami sameeyay Soomaanaha ninka calaqal iika saddex mar uu ku celcelin jiray iyada waa saaruuq amal u tuurtay wala is qabsay waa tuurtay saddexda meesha ku dhamaatay hal gabar yarna waa joogtaa gabadhii la isku qabsaday markii la isku qabsaday ninkana qaadanay gabadhana qaadana almuhim familka soo dhaxgalay waxa la yiri gabadha hooyadeeda u daa ninkii sidoo gabadh ugu daay hooyadiis ugu daay hooyadeed ugu daay waxyar kadib ninkii gabar yar waa la soo doontay ninna soo doontay waa la guursaday ninka cusub ilmihiis uu dul qaadan kara laakiin ilmo kale ma dul qaadan karo xoogo markii la joogo wuxuu hebla maqal aniga adaan ku aroosay gabadhan wax ma ii galin inay gabadhan guriga family leedahay hadii agoon ahaa leedahay laakiin family-keedu ugu aan mahayn kari gabadhan kaasi wuxuu ku tirniyo way barbareed abadan wuxuu yiri aniga intaan ka badan ma joogi ama aniga ama iyada waa labaas door ama gabadha kula joogto oo kala tagayna ama gabar family-keedu u geey hadii agoon tahay laakiin family leedahay aabay leedahay adeer leedahay eedii leedahay u geey gabadhi marka mar habta ninka hore ninkeedina uu celi sooro hooyadeeda u geysay gabadh 4 sano jirta hooyadeeda u geysay hooyadii marka waxay weysay baadiyay la aad baadiyay gabadhi marka xoogo meeshii wax ku soo baratay iskuulay ku soo baratay waa soo baxday magaalooyinka mid kamid ah imaat waaweyn jaamacay gashay gabadheeda jaamacay baratay ninay isbarteen ninkii waa isbarteen wuu soo doontay ayay tiri gabadheeda iska fiican ayada si fiican u soo tarbiyay diinku soo tarbiyaysay aabaheeday wacday ninkaana jir wuxuu yiri oo beela waa ninkaas $5,000 keeno markaas $5,000 waa ninkii uu sheegtay wuxuu yiri $5,000 ana aabay inaan siiyo mehri waxa aan siiyo ma awoodee ma salaam ninkii labaad نفس الطريقة نينكي سدحات سيدو كلا نينكي أفراد سيدو كلا نينكي شنات سيدو كلا شنن سيدي كوفشيلانت جور كبدا خلاص واني جبت إذا وحيو أنكو قرتني سن جور سنة وحيو تكت مركا مساجد وجوت مالنا شيخي إسلا كلنتي شيخي وحو شيخي واني وحيو الجور كما سنة الحياة واي أباها هو يضا
annagaa la hadlayno aabbihii la wacay abadan wuu soo istaagay 5,000 daliisiin wilaayadeeda ma bixinay nin kala soo doontay wuxuu yiri ninkii ugu soo doonta aniga keen nin isbartay ninkii la hadlay wuxuu yiri ani ii soo dir ana weligaaga ninkii uu yimid aabbihii walaad wuxuu maqal si kasta sheekhu uu kari waayay wuxuu yiri waayahay 5,000 waa lagu siinaa hooyadii waxay tiri aabba ma la siinaa ana waa la siinaa 5,000 hadii kale waa ku inkaara gabadh waa naxday sheekhi markaa wuxuu yiri maqal ninkii wuxuu yiri gabadhan waa rabaa runtii waa diinteeda akhlaaqdeeda waa cajibisan guursadan rabaa lacag badan ma haye wuxuu yiri waayahay duq shantiis kun hala siiyo maadaama asiga dan ugu diray wilaayada gacanta ku haaya shantiis hala siiyo gabadha horteeda waxa lagu dhahay marka maqal 5,000 waa lagu siinaa laakiin waa lagu soo yareereynaa ballan waa hadii liisii way soo inkaartaa ma waxa waa lagu siinaa inkaartaa ya Allah wili waay ninkii 5,000 aabaha waa la siiyay tii 5,000 hooyada marka waa loo yareeray ninkii marka meeshuu joogo kuma sameyn karo waa baxay wuxuu dibadda aadaa oo soo shaqeysana wuu soo baxay dibaddu yimid markuu xoogoo joogay xaaskiisu ka haystay meeshuu geeyay marka wuxuu bilaabay tartiib marka inuu diintii hooyadeeda gudo diinta hooyadeeda gudaayay naagtiisa u timid marka aabihii marka wuxuu rabaa wax lacag badan uu rabaa maalin gabadhii soo wacay markuu soo wacay wuxuu ku yiri marka gabadhu waxa aabiyaa soo wacay lacag keen intaan u baahanahay okay waa u diraysa maalin maalmaha kamid marka aabihii wuxuu arkay naagtiisii hore oo gabadha Sacuudi oo dibadda joogta oo dhashay oo xawaalad ka bixaysa lacag qaadanayso arkay banaanku waa meesha uu fariistay markii baxday xawaalad uu gal wuxuu yiri dadka xawaalada ay shaqaan naagtaas maxay qaadatay lacaga loo soo diray gabadheeda heblo telefoonkeeda isii telefoonkeeda isii gabadhiisu waa hooyada ha jeceshahay markaad hore faa'iido ma lahayn reebtiyaashan baa waliga saan ahayd aniga ku raysaan gabadhi marka culeesa soo fuulay ninkii ku tiri marka niyo aabaheen biil rabaa ninkii wuxuu isku keeni waayay marka culeeskan diin meel ka bixi hooyadii biil aabihii biil lacag wuxuu soo aruursaday gabadhin uur yeelatay lacag soo aruursaday wuxuu ku yiri maqal lacagtan aniga tahriibaan kala gabadha ka hor istaagtay laga ma yaaba tahriibina gashid ninkuu ku adkaystay lacagtan ku noolaa uu yiri meeshan wiligan hadaan joogo aabay hooyada aniga biil diintooda ma dhamaaneen waa soo shaqeysana wuu soo baxay ninkii tahriib uu soo galdeeno soo qaatay ninkii laa xis wala khabar hal sano ninka hada laga mahaayo meel uu joogo lama yaqaan gabadhii familkiisa soo wacday ma naqaano meel kasta waa la waayay gabadhii maalmaha kamid marka aabaheeda soo wacay wuxuu yiri xaqii soo dirsan way aabo ninkii ma og meel uu joogo ana ma shaqeyn kiri walaca asana almuhim gabadhii waa aabi hadal ay ka naxdo ku dhahay gabadhii marka waa dhiba gaari isbitaalka la geeyay waa la qalisay section lagu sameeyay cunuga laga soo saaray wiil laga soo saaray gabadhii subhanallah hooyooyinka markuu ilaahay rasuulkiisa saddex xaq uu siinay waa la yaabaysa gabadhii xanuunkeedii dhan haayay markii saan indhaw soo qaaday maxaa dhalay ay ku bilowday kelmadda koobaad maxaa dhalay wiila dhashay wiilkii waa loo keenay markii loo keenay waxay dinad markii wiilkii wax xaraka ma la oo hin maala markaas wiilkii okay miya runta loo sheegay waxa la wiilkaaga intaas uu jiro qaba inuu badbaadayo in kale ilaaha og inuu isbitaalka yaal waay aad nafta inay isbitaal ku jirtid waa saas miya waayahay isbuuc markuu wiil ku jiray waa saqiire iidii markuu waxa ku dhacday wiil la'aan nin la'aan meeshii iska joogto waa iska shaqeysanaysay maalmaha kamid baa la soo wacay ninkaas soo wacay heblo waxay tiri war ma noole intee jirtay wuxuu dhibaatada igu dhacday ilaahun baa og meelaan galay meelaha Yurub iska dhiibay Yurub meel kamid dawladdu sheegay aan joogay waana ku qortay marka sharcigiisa waa lagu keeni doonaa ee dulqaado marka timaad sheeka fiican ku haaya waaya almuhim gabadha ninkii uu ka haystay waa loo qaaday wadankii loo geeyay wadanka markii loo geeyay alxamdulillah gabadha reunion ay sameeyeen waa la sheekaysanaa dhibaatooyinka laga hadlay laga sheekeynay almuhim sheekadii marka waa soo hooyadii aabay hadana soo noqdeen meesh ku soo noqotay gabadhii marka waa aabihii soo wacay maalin wuxuu lacag u baahnaa intaas u baahanahay abu wuxuu tiri aniga hadda ma shaqeeyay ninkii shaqeeyo meeshan ka shaqeyn jiray ma ahan waa ceer yar meeshan la iska qaatay aan lacag u baahanahay ninkii uu yimid wuxuu arkay marka gabadhiisu si kale markaas maxaa jiro may wax ma jira ii sheeg wiro ku aqaana waxay tiri aabihii soo wacay culayskaasna uu sheegtay abshiru ana u diray lacagtii u diray bishii ku xigtay duqi waa soo wacay lacagtii ma baahanahay hay bishii hadda la soo dhaafay lagu soo diray maxaa waay biil miya mas wax joogto waay aan lacag ma baahanahay
ninkii haddana magaalada guriga ku yimid markaasuu united arkay see wuxuu jiraan ninku wuxuu yidhi maqal aabbaha biil muu rabaa is wax ma hal mar waaye marka waxay tiri hadalkiisa waxaan ka fahmin biil oo bil walba intaas uu rabaa wuxuu yidhi bil inuu bil walba intaas ma awoodi runaan kuu sheega hooyada inaan biilo aabbahana intaas bil walba aan siiyo aniga hooyo aabbii fahmin aan leeyahay idan aftarkeeda joogaan shaqadeedana waa taqaana anaa shaqaynaya tiri ma shaqayn karti almuhim shaqo yar iska raaraasatay shaqadii markii xoog u bilowdayba bum uurey qaaday walac waay waxaa dadka walac ku xanuunsadana gabadhan tii hore saas ugu xanuunsatay guriga iska joogtay ninkii culaysku ku soo batay maalmaha kamid marka duqiya soo wacay gabadha aabaheeda soo wacay ninka xaaskiisa message asa telefoonka qabtay ninaa ka qabtay adeer seetan fiican tahay markaasuu yidhi haa ani lacagtaasaa idin weydiisay ma ii soo dirin had inkaar allah ninkii weligeed awal mar ula hadlo waa gabadha aabaheeda hadal uu kula hadlay ninkii wuu naxay inkaar iyo qaylo iyo markuu galay si kale uu noqdo iska dhigay gabadhiyaa soo baxday soo aabaheed la hadlaya way ka qaatay telefoonkii ninkii meel isku fadhiistay aamusaa ka soo heray markaas aabbigii aabbahe maca salaama soo raali gelis aabbihii way maca salaamaysay marka wuxuu yidhi arrintaas waa aabbaha miyaas qofsaan u hadlaya almuhim gabadha ninka wuxuu ku yidhi walaalay intaan ka badan waa culays waaye waxaan sameeyna ma naqaano gabadha almuhim waa xanuunsatay isbitaalaa la geeyey waa lagu soo qalay cunug waa kii labaad waaye gabadhaa lagu soo qalay ninkii marka gurigu ka tegay horta wuxuu yidhi animkula joogi karin muusan funa gurigu ka tegay almuhim gabadhii waa aabbihii wuu saasaa ku dhacay ninkii wuu ka tegay waa xanuunsatay isbitaalaa la geeyey waa la soo wacay ninka naagtaa isbitaalay ku jirtaa markii loo geeyey uu arkay kadib gabadhay dhashaa la yidhi gabadha ka warramay waxaa la yidhi gabadhaada xoogo waa la wareysay ninkaa naagtaad hadda kor wax ma dhashay haa way dhashay say ku dhashay wuxuu yidhi ma joogin qisadii waa aga sheekeeyey marka waxaa la yidhi same situation ahaaye gabadha waxaan umalaynayna xoogo inuu daqd saaran yahay ama culeys uu haayo marka cunugaaga ma naqaano suu ku noolaan doono gabadhaada iyadana waa ku qasbanta isbitaalka inay joogtay leanna sokorteeda waa kacday oo waxay noqotay daciif ay noqotay pneumonia waxay gabadha markii uurka yeelay markii dhan jirooyin badanaa ku dhaco marka iyadana meeshaan ay ku jiraysaa ninkii uu iska joogay wuxuu sameeyo garan waayey almuhim gabadhii waa soo baxday usbuucay joogtay waa laga soo saaray gabadha marka waa mahayn karaa hooyadii iyo gabadha waa soo baxeen xoogoo isla joogeen haddana gabadhi isbitaalaa lagu celiyey maamadii ninkan marka wuxuu ku aansaday gabadhiisa inuu asiga iska hayso maadaama naagtiisa qof xanuunsan markaas ay xanuunsana ay tahay isbitaal la geeyey tookadan isbitaalka waa la geeyey 6 bilood ay ku jirta ninka marka gabadhii 2 sano gaartay gabadhii sariista wuu keeni jiray 3 sano gaartay aan dhahe wuxuu geyn jiray xadaan uu geyn jiray meelaha ilmaha la geeyo waxaa diris leed marka gabar kale oo Soomaali ah waxay aragtay ninkan oo markaas naagta cunugiisa ka haysan gabadha ka haysanay almin gabadh ninka waxay ku tiri waa awna gabadhan hooyadeed aaway isbitaalka ay ku jirtaa marka waxay ku tiri marka nin fiican ah taada isguursana ka waran ninka wuxuu yiri waa beela waa in isguursado waa ani waa rabaa nin naag madiida hadii naag tira madiida waa rabaa ala tul wuxuu yiri haye laakiin wuxuu yiri naaga isbitaalka ku jirta maxaan sameeynaa hadii soo baxday isbitaalka ilaa goorma ku jiray ilaa xoog kale oo ku jiraysa haye aan isguursan way hadii soo baxday waxay tiri hadii soo baxday ilaahna gaarsiin laakiin hadaan isguursan ana gabadhaada ana ku hayna hooyo ku noqonaa ninka wuxuu dhahay ali saarosay markii li saarosay naagta isbitaalka ku jirta ma ogo almuhim naagta waa soo fiicnaatay waa hadal ay bilowday marka uu tagay ninkii markii uu naag aroos uma sheegay wuxuu yiri maqal hebloy maqal wuxuu yiri aniga intaan ka badan kuma noolaan karin cunugayga horo dhibaatada ka soo martay waa ogtahay arintii kaaga soo martayna way taala kan cusub haddana dhibaatada hooyada aabaha waa joogaan meesha waa joogaan oo waa u jeeday dhibaatada soo ka naga soo dhaxmartay sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan ku furo gabadh isbitaalay jiiftaay maysan ka filaneen ninkeeda hadalkaas waxay tiri aniga waaye maxaa dambigan leeyahay maxaa adiga dambi ma leedahay uu dhahay laakiin waa galaysaa dambiga qof kale ku soo pressure ku soo saaray ana ila soo fuulaysa anigana ma qaadi karuntan ku sheegay qof xumatid waa ku jeclahay laakiin noloshan ku masii juri kari aniga inaan culayskaas ma hayn kari sidaa darteed waa ka xumahay waa furantahay wana ka soo tagay gabadhi isbitaalkii xanuun kala ku dhacay waaba soo fiicnays xanuun kala ku dhacay meeshii joogtay ninkii gabadhiisa uu ka haystay magaalo wadan kale oo Yurub joogto la aaday gabadhii 6 bilood sanad kadib waa ka soo baxday markay soo baxday gabadheedii aaway ninkii aaway waa baxay intuu aaday lama yaqaan waa raadisay way raadisay hooyadeedii aabaheedii wacday aabii waa dhibaatada aaga sheekeysay runtii hooyadii aabaheedii ayaga naftirkooda xoogo waa ka shalaayeen
ninkii gabadha u ducooyeen laakiin waxay u soo heleen ninkeeda faamilkiisa aabihiisa oo joogo wadan joogo Yurub joogo nambarkii usoo ninkii gabadha warkay waxay wacday ninkii aabihiisa wacday waxay tiri arintaas hiblaan ahay oo qisadii aaga sheekaysay ninkii wuxuu ku yiri gabadhi waxa sheegayso rumiya oo intaan wax dhibaato ku gaartay jimcada soo socotay ma iimaan kartaa hawa ku iimaan kartaa tigidka ana ku soo jaraayo magacaaga ii soo sheeg jimcada soo socotay imaaw anana ka soo qaaday hay'tay jimcadii tigid u jaray oo u yeeray wiilkiisiina meeshan uu deganaa kala aroosay marka naakadu qabay oo ilmu leeyahay wiilkiisu wuxuu ku yiri maqal jimcada soo socoto adiga gabadhaada ii imaaw waa idin rabaay adin casuumay haye ninka abiis waay asii gabadhiisa urudka ahaado naad kale u dhashay soo wada uu soo labiso keeno imaaday naagtan gabadhii naagta hore kala tagaysay guriga joogteen ninkii hortana gabadhii oo sodo xaaga wiilkiisa qabay si fiican uu soo dhaway gurigu keenay waa qoluu dajiyay wuxuu yiri waa martiyaan oo iimaanayso kadib ninkii iyo gabadhii wada soo galay gabadhii markii gabadheeda aragtay subhanallah iyadoo bila ugu dambeysay dad yaqaan waa isgarteen isla markii way fiirisay gabadheeda miyaa ay tiri su'aasha koobaad weydiis wiligeed waxa uu maleynaa maysan arkaxta gabadheeda miyaa waa hadda almost waxay jirtaa 5 sano 4 sano 5 sano jirtaa way ku soo oroday gabadhaad waa Allah marka gabadhii markii meeshii sidii ku qabsatay meeshii ku oysay waa ninkeediina meeshuu taagan yahay aabihiina meeshuu taagan yahay abi wuxuu ku yiri ilaahan kugu dhaaray gabadhan ma xasas ugu gashay xir aaba ani dambi maleehi waa culays ma qaadi kari aabihi waa meeshu wiilki emotional ade moment of emotional dhalay waa qof walba caloosha mandarkaas oo kale waa mandar waxa waay oo calool hor waay aabihi meeshu fariisay wiilkiisa wuxuu ku yiri maqal wallahi billahi tallahi wiilkaygana ma tihi kumana aqaani وانا كو انكار هذا gabadheeda siin weysa hadda ma celinaysa meeshan aaga tag wiilku wuxuu aab wallahi kama celinaysa dur hadda aabaha oo xaq u leeyahay gabadha meesha aaga tag way waa gabadhi meesha aaga tag aabihi gabadhii uu yimid wuxuu gabadhaad ma haysataa waa haystaa wax Allah la waxa aragtay sheego dhah hadaarad inaad gurigan deganaatid xoraa tahay meeshaas guriga qolkaas aa leedahay gurigan gabadheeda gabadhan abuwa gabadhay dhashaa tahay intaas dhibaatana waa ku soo gaartay wiilkeena sabab ha u ahaado laakiin dhibaato ku soo gaartay hadaarad meesha inaad deganaaw hadaarad inaad guri kale ijaartid aad hadaarad meesha ka timid ku noqotid ku noq laakiin ani waxaan jeclaa lahaa ina meesha igu deganaatid gabadhii waxay ku tiri adeer aabba ka fiican wiligii ma arkin ballan waxay tahay meel gabadhaada oo ugu teeynaan ku haayo meesha aan ku haayo intaan aan kula deganaana gabadhii xoog waa farxadii soo noqotay waxa barashay bilaa shaqay bilaa guri kale marka almuhiimna isbarteen ninkii soo doontay ninkii marka waa qisada marka wax intaan dhan waxa lii sheega waxa marka anay soo wacday inay ila tashatay rabtay sheekhu inaan kula tashtaan rabay oo ninaan rabay inaan gursi qisadeedana waa tane markaas qisada hadii sheegay dhan markaas ii sheegtay arintaas runtii waa aadan oo la caatifooda gabadh waxaan dhahay gabadha tahay xaq u leedahay inaad gursatid marka hal waxaan kugu waanina ninka iska fiiri diintiisa iyo akhlaaqdiisa fiiri ko talabaadna u sheeg si adiga hooyada ku dhacday ku dhiyaan waxa ku tarniyahow gabadhaana uu tahay meelan aaga tagayna malaha shardi ka dhigo shardi zawaaj ka dhigo xaq u leedahay gabadha hadda ay qabaysid gabadhaana waa gabadheeda waa gabadhaada kale inaad ula dhaqmaysid ballan noo ahaato waa shardi gabadha way ka dhigan kartaa tan saddexaad sameynaysid waxa istikhaarayso hayay ugu tiri wax gabadhan wanaageeda waxa ku tusaa hatta ninkii sodogeeda way la soo tashay waxay ninkaas aan rabaa inaan isguursano maxay kula tahay ninkii marka sodogii gabadh ninkii aad uu amaanay wuxuu yiri waa nin fiican waay waana isna qaanay sidii uu ugu duceeyay gabadha sidii ayay ku aqal gashay sidii ayay ku guursatay kadibna aabe hooyadeeda wacatay aabaheeda uu dhintay hooyadeeda markay dambe iyo lacag ku shaqaysatay marka ku keentay meeshii joogtay yuru ku keentay ee sidoo ku deganaayeen qisada marka meeshaan ay ku dhamaatay family oo farxad ah runtii qisooyin qaar kood waxaan jecel markii lii sheego wadankan weydiiyay waa iska safar badanaa waa u taga markii arinta magaalada uu sheegtay marka magaaladooda aan u socday waa wacay waxaan ku dhahay magaaladiina u soo socdaa qisada gabadhiina waa soo arkay oo arinta ku dhacday
ninkiina waa soo arkay sodogiina waa soo arkay bal sodoga waa bicazuumaybo waa gurigiisanta waa soo arkay qisada waa arkaa waa gabadhiina uu soo duceeyay ninka nin xun ma asnaftirka waa ninka intaas uu sameeyay oo beeli jiray laakiin qofku markuu culeyska ka bato waxa laga yaabaa inuu sameeyo qaraaraad oo laga fiican inuu sameeyo laga yaabaa marka qisadan sidoo kale waxa dhibaatada iimaanaysa waxa kala tagitaanka gabadhan hadda fiiri hooyada aabaha isqabi lahaayeen halkun hadii loo diro waa ku filnaaleed laakiin gabadha hooyadeedii aabaheedu isfiirsanayeen ha hooyadaha jeceshay Soomaan aw anigu waxay aabba markii loo diro ha ana ku soo kori hooyadaha ku soo kori ayida ku soo aabaha muxuu ku yaqaani wili wax ku muusan siin jirin hadda asaasiinay miya marka waxa imaana waa lisjijiida masara ka imaana marka guriga burburitaankiisa in la ilaaliyo waa muhiim waaye tan labaad oo rabo inaan dhaho gabdhaha meel walba joogan ama inta joogan gabdhaha fiirsan doona xataa hadhow waalidka in la biilo sax waaye laakiin guriga in loo burburiyo waalidkaaga wuu noolaa saraaxa waxaa jirta hadalka waaqic in laga hadlaa fiican runtii arrimahan aad ay u soo bateen gabar joogto oo nin qabo hadda Soomaaliya qaarkood waxay dhahaan waxa waaye ninkii gabar u maqan tahay khayr u maqan run ahaantii ani shakhsiyan ma jecel kelmadaas gabadha nina qabo gabadhaada haad baari kasta ku aad nina qabo gabadh markuu nin qab ninkaas mas'uulka ah gabadh in leeyahay soo dir oo fi nihaay gurigeeda lagu burburi wax wanaagsan ma ahan runtii waalidiinta waa anu aad u ixtiraamay waxaan jeclaa lahay arintaas inay ka fiirsadaan oo gabadha mad Yurub ha joogto Mareykan ha joogto in leeyahay keen hada keeni weys waa ku inkaara ma fiicno wax laga fiican yahay waay guriga haduu raba waa ku inkaara hadii guriga Allah ka burburiyo in lagu yiraahdo taasne way ka sii daran tahay marka waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha aan rabaa inaan ku bilaabo ama wiilka waa ku qasban yahay inuu aabiis ama uu soo xamaal ama hakeena waa ku qasban yahay gabadha miskiinta waxa laga yaabaa iida ma shaqeynayso ilmi haysaa ninkaas uu shaqeynayo hal gacan ay haystaan okay gacan labaad wax ka soo qaadaysaa ninkii isi deedis marka dambe wuxuu leeyahay aniga banaftii family ii joogo musku keeni kari hal mar wax yar markay tahay waa fiican tahay in isla wada biilo marka laakiin gabadha waxaan dhihi lahaa waalidka inta awoodud u dir ilaahay la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha inta awoodud dir ka badan ma jirto inta awoodud u dir hadaadan awoodin bi ihtiram waxa ku tirahay hooyo macaani waa ku jeclaa naftaydan ku siin lahaa laakiin wallahi ma haayi adoo hadal wanaagsan ku dhahaysid aabbo waa ku jeclaa laakiin ma haayi hadaa haysidna u dir ninka oo gabadha qabo oo sodohda ama sodogaaga waa hooyada aabaha oo kala waa waxay ku siiyeen waxa qof la siiyay waxa ugu qiimaha badan gabadhooday ku siiyeen waa ina uu ixtiraam sidii hooyada aabaha oo kala ixtiraamaysid ee madax ku saarnaadaan waa ina kala qaadid ama tiraado kala waa naagteeda cideeda wax miigeena tiraado kala waa laga fiican yahay ninkan waxaan dhihi lahaa naagtaada cideeda waa cidaado kala waa hooyadeedii aabaheed waxay ku siiyeen gift oo qof la siiyay aysan jirin gabadhoodii ay soo korsadeen ay jeclaayeen ku soo dhiseen ay ku siiyeen ay caruur ku dhashay marka dadkaas waa ixtiraam gooni mudan yihiin ina ixtiraamtid waa guriga marka in la ilaaliyo burburkiisa la ilaaliyo oo aan laga shalaynin hadhow ayaa loo baahan yahay qisada meesha ugu dhamaatay waa dhamaasmaa waqtiga naga dhamaaday waa jeclaalahay nasiib wadna insha Allah taala waxaan jeclahay markii inaan intaas ku soo gabagabeeyo jazakumullahu khayr ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo